daawadaha qiimiga badan waa mar kale im252 haddii aad doonto in aad ogaato halka uu joogo saaxiibkaaga way fududahay oo barnaamijyo badan ayaad adeegsan kartaa mid ka mid ah barnaamijyada aad ku ogaan karto waa Facebook waxaad awood u yeelanaysaa in aad ogaato halka uu joogo saaxiibkaaga iyo waliba inta kiiloomitir ee uu ku jiro markaas oo aad si fudud u ogaan karto asxaabta u dhow goobta aad adigu joogto waxaa laga yaabaa in ay arintan cabsi kuugu abuurto oo ah ama haddaba la og yahay halka aan joogo maadaama aan Facebook isticmaalo balantaa kaaga jawaabo adeegan magaciisa waa nearby friends ama asxaabta ku dhow waana opt-in feature ama adeeg ku yimaada isaga oo off ah ama dansan haddii aad on ka dhigto oo kaliya ayuu shaqeynayaa oo la ogaan karaa halka aad joogto adiga ayaana asxaabtaada u ogolaan karaa ogeysiis ayuu ku soo dirayaa haddii ay asxaabta qaar joogaan meel aad ugu dhow goobta aad joogto waxaad sidoo kale maamuli kartaa cidda ogaan karta halka aad joogto adigoo asxaabta qaarna ka qarin kara kuwa qaarna u ogolaan kara kuwa sii kordhi in aad iska xiri karto adeegan gabi ahaanba marka aad doonto furan kartana marka ay kaa qabato fariinta gaaban ee im252 kadib ayaan isugu soo laaban doonaa ha ka daalin ha ka caajisin ha ka joogsan ha ka weynaan hana ka fogaan inaad wax barato waxbarashadu waa hubka ugu wanaagsan ee aad ku bedeli karto naftaada iyo waxa kugu hareeraysanba waxbarashadu waa baasaboorka iyo aqoonsiga aad ku geli doonto mustaqbal wanaagsan haddaadan horey wax u baran hadda wax baro haddaad wax taqaana aqoon lama dhammeeyo wax cusub baro si aad u gasho adeega nearby friends ee Facebook waxaad marka hore gashaa barnaamijka Facebook ee telefoonkaaga ku jira kadibna taabo saddexda xariiq ee sare haddii uu telefoonkaagu yahay Android sida Samsung oo kale iPhone-kana hoos ayuu ku leeyahay saddexdaas xariiq ee aan kuu sheegayo kadibna taabo nearby friends shaashadiisa ugu horeeya waxa uu qaybta hoose kuugu tusinayaa qaar ka mid ah asxaabtaada Facebook ee uu hadda u furan yahay barnaamijka nearby friends oo aad arki karto goobaha ay kala joogaan si aad u bilowdo arkidda goobaha ay asxaabtaada ku sugan yihiin marka hore taabo get started kadibna xulo dadka aad u ogoshahay in ay arkaan goobta aad adigu joogto taabo halkan ay ku qoran tahay friends kadibna xulo cidda aad u ogoshahay ogaanshaha halka aad ku sugan tahay sida caadiga ah waxaa ku xulan friends oo waxaa ku arki kara qof kasta oo aad Facebook saaxiibo ku tihiin si aad asxaabta qaar isaga qariso oo aysan u ogaan goobtaada xulo friends accept oo macnaheedu yahay hay arkaan asxaabteyda Facebook oo idil marka laga reebo hebel 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 iyo hebel waa intaa laakiin waxaan ka tagay hebel oo aan isna iska qarinayo laakiin hebel waan rabay inaan iska qariyo laakiin waan waayay bal aan halkan magaciisa ku qoro waa kan isagana ku dar oo yuusan ogaan goobta aan ku suganahay haddii aad doonto in ay kaliya ku arkaan asxaab gaar ah oo aad iska qariso dadka intiisa kale xulo specific friends kadibna mid u dooro saaxiibada aad u ogoshahay inay ku arkaan haddii aad doontana hal ama labo ayaad u ogolaan kartaa intaa kadib dib u laabo oo taabo turn on si aad u daarto barnaamijka nearby friends waxaad u jeedaa in markiiba uu raadinayo asxaabta kuu dhow ama kula jooga magaalada aad joogto maabka iyo halka ay kala joogaan ayuu ku tusinayaa iyo inta kiiloomitir ee uu qof kasta ku jiro haddii aad maabka timaado waxaad arki kartaa magaalooyinka asxaabtaada kala joogaan kaliya weynay ama yaray ama geesaha u dhaqaaji si aad u aragto magaalooyinka ay ku kala sugan yihiin xitaa haddii ay joogaan meel ka baxsan waddanka aad joogto halkan ay ku qoran tahay nearby waxa uu ii soo qabanayaa dadka iigu dhow goob ahaan iyo tirada dadka aan arki karo goobahooda halkan see more friends taabo si aad u aragto asxaabtaada inta kuu ogolaatay in aad aragto halka ay joogaan
haddii aad hoos u sii socotana waxa uu asxaabtaada kuu kala saarayaa hadba magaalooyinka ay kala joogaan isagoo kuu soo saaraya magaalo walba iyo asxaabtaada inta ka joogta magaaladaas ilaa uu marka dambe kuu soo saaro magaalooyinka ka baxsan dalka aad joogto iyo sida ay asxaabtaada u kala joogaan qofka aad doonto in aad markaa la hadashana halkan message ayaad taabanaysaa kadibna si toosa ayaad ugala hadli kartaa messengerkiisa si aad isaga xirto gebi ahaanba barnaamijka Nearby Friends taabo saddexdan xariiq ee sare kadibna xulo settings kadibna halka sare ee Nearby Friends ay ku qoran tahay off ka dhig xulo inta aad doonayso inuu kaa xirnaado barnaamijkan ma hal saac kaliya ma ilaa iyo beri subax ma 24 saac mise isagoo dhan inaad iska xirto ayaad doonaysaa haddii aad isagoo dhan wada xidhayso halkan turn off Nearby Friends taabo haddii aad iPhone adeegsanayso waxaa muhiim ah inaan kuu sheego marka aad daarayso barnaamijkan waa in aad barnaamijka Facebook u ogolaataa in uu ogaado meesha aad joogto adigoo taabanaya iOS settings kadibna taabanaya location kadibna always halkan ka dhigaya intaa kadib ku laabo Facebooka si toos ayuu kugu shaqeynayaa barnaamijka Nearby Friends ee Facebook sidaad u jeedo ugu dambeyntii waxaan kugula talinayaa inaadan marna adeegsan barnaamijka Nearby Friends haddii aysan dan kuu hayn waayo Facebook waxa uu si joogto ah u kaydsanayaa dhaqdhaqaaqa iyo hadba goobta aad ku sugan tahay intaa waa iga tale go'aankase adiga ayaan kuu daynayaa dhanka kale sidee baad u aragtaa barnaamijkan fadlan qaybta hoose faaladaada noogu reeb anigoo ku faraxsan inaad dhamaysatay muuqaalkan waan rajaynayaa in aad wax un ka faa'iiday haba yaraatee waa inoo muuqaalka xigay idankii nabade